waxaa sharaf weyn ii ah inaan ka mid ahay xildhibaanada baarlamaanka 11aad oo maanta loo dhaarinayo xilkooda loo dhaarinayo 4 sano soo socota waxaa kaleeto oo maxaa la yiraahdaa sharaf weyn noo ah inuu baarlamaankii dhammaystiran yahay oo aan wax ka maqan la arkinin intoodii badneed ay wada joogaan waxa weeye waa Soomaaliya waxay soo ahayd cabaar badan yaa waxa ka maqnaa dawladnimadeedu ay waxa ku jirtay naaqus maantayto markii dhaartaan dhacdo waxa dhismaya baadhigi ugu horreeyay oo dawladda Soomaaliya baarlamaanka 11aad waxaan u rajaynayaa Ilaahay idin iska rajaynayaa inuu noqdo baarlamaan dalkan Soomaaliya samata bixiya oo dhibaatada maanta jirta ka badbaadiya aad baa u mahadsantiin hambal shacabka Soomaaliyeed waxaan uga hambaliyaynayaa dhaarinta xildhibaanada oo maanta ah muxuu ahay bisha 14 tahay muxuu ahay baarlamaankii ayaa la dhaarinayaa shacabka Soomaaliyeed hididiile iyo rajo fiican ayaa u muuqata insha Allah saaxiibkii xidigna waa ay soo joogsaday maanta waa maalin farxadeed waa maalin baarlamaanka la dhaarinayo waa maalintii shacabka Soomaaliyeed ay rajada ugu fiican ay soo galeysay insha Allah waxaan Ilaahay ka baryayaa in muxuu ahay shacabka Soomaaliyeed dawladnimadooda uu adkeeyo annagana Ilaahay anagu ceeb aasto هذا هو محسن همبليو ومالين runtii aad loo sugayay la isku dayay inay wax badan ka halaabaan laakiin nasiib wanaag alxamdulillah Ilaahay baa ku mahadsan maanta meel fiican bay joogtaa oo ah in baarlamaanka halka la isugu keenay lana dhaarin doono wixii hadda ka dambeeyana mas'uuliyadda isagu la wareegi doono aad baa u mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن سلام ومد Soomaaliyeed meel walba adduunyada ku joogto maanta waxaan ka mid noqday fillahi alxamdu baarlamaanka 11aad waxaan siyaasad ku soo biiray baarlamaanka 8aad waxaan Ilaahay ugu mahad celinaynaa Ilaahayna waafajiyay waxaan rajaynaynaa insha Allah taala inuu noqdo baarlamaan Ilaahay waafajiyo qof dalka dadka diinta dan ugu jirto insha Allah taala ما شاء الله maanta waxa guul noo adeeyna meeshan sugu imaano xafladda dhaaritaanka oo ah qaybtii ugu dambeysay ee xildhibaanimada xalaal ka dhigaysay xildhibaanada marka waxa laga rabaa inay ogaadaan inay yihiin sharci dejiyaasha wadankan mas'uuliyad ay ka saaran tahay marka waxaan kulli xildhibaanada aan ugu duceynayaa Ilaahay inuu la garab galo xilkay qaadeen Ilaahayna in laga cabsado oo dalkan la badbaadiyo oo dalkan maaragtay cadawga ku soo duulay mid walba uu yahay laga qabto waan salaamay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan Ilaahay bisha barakeysan Ramadaan khayrkeeda hayna waafajiyo maalin taariikhi weeye waa maalin ummadda Soomaaliyeed ay naga sugayso inaynu didabada u aasno dawladnimadii 4 sano soo socotay insha Allah taala waxaan ku rajaynahay dhammaan xildhibaanada labada aqal ee Soomaaliya inay waajibadkooda gudan doonaan ummadda Soomaaliyeedna sidii Ilaahay ku ogaa ee dhaartu ay farayso ay u fuliyaan khayr baan idin rajaynayaa waa mahadsantiin bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin maanta oo taariikhdu tahay 14 bisha abriil waxaan halkan u taagannahay sida rasmiga inaan ugu dhaaranno xildhibaanada dawladda federaalka ee Soomaaliya maanta waa maalin qiimo u leh dalka Soomaaliyeed waa maalin muhiim ah maanta oo kale waxa loo baahan yahay dadku inay si jira ay uga shaqeeyaan midnimada iyo wadajirka Soomaaliyeed waxaan u gudbaynaa waa baarlamaankii 11aad waxaan rajaynaynaa insha Allah taala dalka iyo dadka waxaan faacay inay u soo baxaan xildhibaanadana waxaan ku boorinayaa inay Ilaahay ugu dhawaadaan wax walba ay sameynayaan shaqadana ay laabaan maadaama dalku ku soo jiray wax badan muddo isjiidida isjiidka looga baxo in la shaqeeyo bisha Ramadaan ee fadliga badan dhexdeeda la shaqeeyo si degdeg ah loo soo saaro madaxdii iyo maamulkii dalkan hogaami lahaay aad iyo aad u mahadsantiin ku soo dhawow abka xiisaha badan ee qanciye waxaad ka daawan kartaa filimada Hindiga Ameerikaanka iyo kuwo kale oo xiiso badan hadday ahaan lahayd musalsalada Hindiga Turkida ama Ameerikaanka oo af Soomaali lagu turjumay waxaan ka marnayn ciyaaraha live-ka ah oo aad ka daawan kartid iyo waliba tifiyada Soomaalida dhammaantood
ka soo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeenna caawin 24 saac 7 maalin ah degso muuqaalka aad ka heshid HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga mobilkaaga iyo waliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga haddaba ha moogaan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye aniga waa qanciyay adiguna ma ku qanciyay